ilmuhu sideedaba walaalayaal inuu ilmo aad dhashay macno weyn ma sameynayso laakiin waxa macno weyn sameynaya ilmaha inaad dhasho haddana ilmihii uu caruur hagaagsan yahay ilmo saalix oo tayiba inuu yahay nabiyullaahi zakariya calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam markuu rabbi ilmo weydiisanay muxuu yidhi hab lii min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samiicu ducaa ilaahow caruur isii ma caruur oo dhan baad rabtaa maya caruur wan wanaagsan tayiba awlaad wan wanaagsan oo ilaahay taqaana tabaaraka wa tacaala oo akhlaaq leh oo waalidkood baari u ah oo diin leh ilaahow ilmaha isii dhurriya tayiba taawaya midda ilaahay tabaaraka wa tacaala ilmaha ruuxa hadduu siiyo nicmo ilmaha hadday adduunka kula joogaanna baari ku ah oon amarkaaga diidaynin oo ilaahay kaaga baqaya tabaaraka wa tacaala haddii aad dhimatana kuu soo ducaynayo qabriga kugu xusahaya ood aakhariya adduunba nafcigooda u baxsanayso haddaad aakhara tagtana kuu shafeeci ilmaha noocaasa baa la doonayaa inuu noqdo ilmaha aad korinayso ama dhalayso asaaska marka waxaa laga soo bilaabay isdoorashada labada isguursanaya sifaadka isku dooranaya markii laysu yimid gurigii iyo kulankii gogasha iyo xirsi xidh baa lagu xijiyey markuu ilmihii dhashay oo uu bannaanka yimid ayadana waxaa ku xigta wuxuu imaanayaa qoys hagaagsan iyo guri hagaagsan iyo bii'o hagaagsan oo islaamku ka muuqdo diini ka muuqato akhlaaqi ka muuqato alla ku xidhnaan ka muuqato naxariis ilaahay iyo sakiina ku degayso guri noocaasuu imaanaya isagoo fidra ku dhashay ilan ilmo kasta oo dhasha sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo la dhalo waxaa lagu dhalaa buu nabigu sal alay wasalam toosnaan asagoo qalbigiisu alla yaqaano oo qalbigiisu hagaagsan yahay oo islaam yahay qalbigiisu ayuu dhashaa maxaa khariba marka fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi buu nabigu sal alay wasalam labada dhashay ee uu guriga ugu yimid ee korinaysa labadaasaa ama yahuudi ka dhigta ama nasraani ka dhigta ama majuusi ka dhigta yacni sax buu ilmo walba ku dhalanaya aabbihii hooyadii waxay dooni ha ahaadeen laakiin markuu dhasho bii'ada gurigaa beddelaysa aabbihii hooyo hadday yahuud haystaanna yahuudi bay u beddelayaan hadday nasaaro haystaanoo saddex ilaah caabudaanna saddex ilaah bay ka dhaadhicinayaanoo qalbigii toosnaa waa kharibayaan hadday majuus dabcaabuda yihiinna dabcaabudkaasay barayaanoo dariiqii waa ka leexinaya kadaalika wax alla wixii waalidku yahay buu ilmihiisa ka dhigayaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu miaal uga dhigay sidii neefka xoolaha markuu dhasho neefka xoolaha wuxuu ka soo baxaa hooyadii asagoo oon sumad lahayn kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa isagoon meel la go'nayn sumadna lahayn dhammaystiran buu ilmuhu hooyadii ka yimaadaa waa xoolaha kadibna dadkii lahaabaa ama dhegta ka jara ama sumada ama gogooya iyagaa siday doonaan ka yeela laakiin marka hore neefka xoolihii wuxuu dhashaa isagoo dhammaystiran kadaalika aadamuhu caruurtiisu wuxuu dhashaa isagoo toosan laakiin waxaa kharibta bii'ada gurigii marka waa la hagaajin hooyadii waa inay saalixad tahay aabbihii waa inuu saalix yahay guriga waxaa loo sii hagaajinayaa waxaa qayb ka ah ilmaha imaanaya inuu bii'o saxa yimaado fitradiisii saxsanayd meel u sii kordhisa khayrka u horqaada wanaagga ku tarbiyaysa sidaasaa loo sii diyaarinaya halkaa ilmuhu markuu yimaado uu dhasho xilka koobaadii hooyuu saaran yahay xilka labaadna aabbuhu saaran yahay li'anna hooyadu ilmaha inta hore oo dhan gacanku hayntiisa iyadaa khaas la ah aabbe wuxuu soo gaadhayaa tarbiya ahaan mar dambe laakiin hooyaa marka hore gacanta ku qabanaysa
naaskeeday nuujinaysaa markaasuu khayr ka nuugi ama shar dhabtay ku qabanaysaa markaasuu khayr ka arkaya ama shar dhabarkay saaraysaayo way xambaaraysaa khayr buu ka arki ama shar khayr buu ka maqli ama shar wahaakada ruuxa ugu horeeyay ilmuhu markuu dhasho uu la baashirayo la noolaanayo la takayufayo waa hooyada hooyo marka waxa waajib ku ah ilmahaas inay ka dadaasho Allah tabaaraka wa ta'ala maalinta qiyaamada waxyaabaha uu kala xisaabtami doono waxa kamida ilmaha xadiidka Abdullah ibn Umar fi sahih al-Bukhari wa ghayrihi nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi wa kayiri kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi mid kasto idinka idin kamida waa raaci oo waxba la raaciyay wax loo diray baa jiro uu ku maqan yahay ruux walbana wixii la raaciyay waa la weydiin doonaa Ilaahay hortiisa tabaaraka wa ta'ala waxa laga soo bilaabay ninka madaxda muslimiinta raaciyadiisa la raaciyay raaciyadaasana maalinta qiyaamada la weydiin doonaa ninka gurigiisa la raaciyay gurigiisana la weydiin doonaa xaaskiisii ilmihiisa la warsan doonaa iyadaana ku yaan la raaciyo loo diray inuu ka shaqeeyo haweeneyda gurigeeda iyo ilmaheeda la raaciyay oo maalinta qiyaamada la weydiin doonaa adayacad am hafidat ma dayacday mas'uuliyadda iyo xilka misawaad xifdiday xilkaasi marka walaalayaal waa xil aad iyo aad muhiim u ah caruurteena inay caruur wanaagsan noqdaan gabdhaheenu gabdho wanaagsan noqdaan wiilasheenu wiilal wanaagsan noqdaan wiilashu wiilal haliyeeya noqdaan geesiyaal Ilaahay u adeega noqdaan diinta Ilaahay u shaqeeya noqdaan culimo ay noqdaan ahlu diin inay noqdaan dad Ilaahay tabaaraka wa ta'ala diintiisa wax ku tara bulshadana wax u qabta aakhiradoodina dhisa waalidkoodna garta inay noqdaan waalidkoodna garta gabdhaheenuna inay noqdaan gabdho wanaagsan oo diin leh oo saalixaada oo mas'uuliyadoodii xilkooda ka soo baxa oo soo saara jiilkii ummadda muslimka wax u qaban lahaa gabdhihii soo saari lahaa idinka la idinka rabaa intaas oo dhan xilkaas idinku idin saaran hooyada mas'uuliyad weyn baa marka saaran waana mas'uuliyadda aan dayacnay waa mas'uuliyad aan dayacnay dibka ina haysteed aragteen maxaa inoo dhashay mooriyaan dhuljiif dayday balaayo wada jibirjaan ah waxaasi hooyaa soo saartay ogow waxaas dhulkii cunay oo dalkii cunay oo carradii cunay oo waxba reebin oo birihii jajabsaday waxa dhurwaayada mawjida waraabaha yeeyda waxaasi hooyo umbe ka yimaadeen walow hooyadu mas'uuliyadeeda ay u kici lahaydna waxaad arkaysaan waxay ka dhigi lahayd rag qiimo leh waxa la yiraahdaa ida ra'ayta rajulan 'aziman fa'lam anna wara'ahu imra'atun 'azima haddaad aragto nin weyn oo la qadariyo oo magac leh xikmad iyo aqli leh diin leh caalim ah hogaamiye ah nin weyn haddaad aragto la qiimeeyo hooyo weyn baa ka dambaysay ogow bilaash kuma iman madrasadu ka soo baxay baa meesha taala warshadii samaysay baa meesha taala haddaad aragto mid dayacanna hooyo dayacan buu ka yimid hooyo dayacday hooyo marka dowrkeeda iyo kaalinteeda hadday qaadato ummadan wax weyn baa iska bedeli isbedelkaas inaad samaysaan baa la doonayaa